xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ee Wadani oo maanta qayb ka mid ah warfideenka kula hadlay magaalada Hargeysa wuxuu xogayuu dhaliilo kulkulul soo jeediyay Ha'yada Shaqaalaha dawladda Somaliland taasi oo ku dhaliilay in shaqaalaha dawladda Somaliland ay si weyn uga dhex muuqdeen shirweynaha afraad ee xisbi xaakinka talada dalka haya kulmiye oo ku qabsaday dhawaan magaalada Hargeysa waxaanu xogayuu xusay in shaqaalaha dawladda aanay ka dhex muuqan karin xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale kuwa muxaafidka toonna isagoo xisbi xaakinka talada dalka haya kulmiye ku dhaliilay inuu jabiyay qawaaniintii iyo sharcigii u yeelay qaranka oo kamid ahaa ergooyinkii shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye oo qayb galay sidoo tilmaamayo qodobka 6aad fiqradiisa koowaad iyo labaad ee xeerka shaqaalaha dawladda xeer number 796 wuxuu si cad u sheegay in shaqaaluhu hogaamiye ama xubin firfircoon xisbiyada siyaasadda kamid noqon oo aanay asxaabta qaranka ku milmin mucaarad iyo muxaafid midkoodna shaqaalaha dawladda qaranku waxay si weyn uga muuqdeen shirkii afraad ee xisbiga kulmiye oo moodaysay inuu ahaa shirweynihii shaqaalaha dawladda Somaliland xisbiga kulmiye muu ixtiraamin xeerarka iyo shuruucda qaranka u taala taasoo si cad ugu diidaysa shaqaalaha dawladdu inay sina ugu milmaan kamid noqoshada asxaabta qaranka waxaynu inta badan maqalaa Ha'yada Shaqaalaha dawladda Farxaan Aadan Haybe oo gudoomiyaha ka yahay iyadoo lagu anshax marinayo shaqaalaha dawladeed oo dad badan hadda lagu eriyay in ay aragtidooda si uun baraha bulshada ay uga dhiibteen fikir waxaynu eegaynaa talaabada uu qaado iyo in uu sharcigu shaqeeyo oo uu ahaado mid mucaarad iyo muxaafid cid kasta oo shuruucda ku gaftay qabanaya taana waxaan uga fadhinaa gudoomiyaha Ha'yada Shaqaalaha runtii gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland muu ixtiraamin shuruucda iyo qawaaniinta qaranka u yaala waxaan uga faa'iideeyay xisbiga kulmiye dhaqaalihii qaranka waxaana ku milmay oo ergooyinka kamid ahaa shaqaalihii dawladda ee inta badan uu madaxweynuhu ku celcelinayay inaanay sinaba uga mid noqon karin ee uu soo jeedinayay agaasimayaasha guud ee wasaaraduhu inay yihiin adeegayaal bulsho ee aanay ahayn xubno siyaasi ah oo fulinta oo matalaya dawladda waxa runtii iyaguna ka muuqday oo ay foolxumo weyn ahayd hay'ado gaar ah oo iyaguna ixtiraam mudnaa oo aynaan garanayba sida ay dhex ugu noqon karaan hadhow saddexda xisbiye bulshada oo kamid ah komishanka xuquuqda insaanka qaranka oo xubno kamid ay shirka fadhiyeen oo ay kamid ahaayeen dadkii joogay waxaana muhiim ah qofka mas'uulka ee halka gaaray ama shaqaalaha noqday inuu labada mid uun aamino ugu ama inuu noqdo adeega bulsho oo qarankan iyo dadkan cashuurtooda ay u tahay mushahar iyo masaariif ama in uu galo xaq buu qofku u leeyahay xisbiyada qaranka inuu kamid ahaado waxa runtii isagana aad moodaysay foolxumo weyn ahayd safiirka Somaliland u fadhiya dalka Djibouti oo isna ergey ahaa oo aad moodaysay inuu yahay safiirka inuu yahay gudoomiyaha xafiiska kulmiye u fadhiya Djibouti safiirku astaan qaran ummadda Somaliland dalbu ku matalaa waxaanu aaminaynaa xisbiyahan u qaadanayna maadaama uu ergooyinkii kamid ahaa oo ku milmay xisbiyadii uu kamid yahayna inuu xafiiska kulmiye dalka Djibouti qaabilsan yahay ahayn safiirka Somaliland u fadhiya Djibouti ixtiraamka iyo dawladnimada iyo haybaduna waxay ahayd in uu sidaa yeelo ayaguna kamid ahaa agaasimayaal guud oo shaqadii soo beelihiyay oo aanay iyagana haboonayn sida uu madaxweynuhu in badan sheegay ee aanu ka soo xiganayno xamse dabaare RTN TV Hargeysa.